السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قالقة كسود هذا برنامجنا إلى لكتشردنا عافيمات كندها إن هدو إلى هذا ما توحن كهذلنا إن لكتشر عسوان بلاو دون هدو إلى هذا مادة عصب أيام بلاوينا إن هروحان أوصو هذا مادة جنرال منطقة أنا تم جود هنا كقصة هذا فيسيولوجي إن سبيشال هيت أنا كقصة هذا إن أنت صلك جران كقصة هذا sidoo kale qaybteena waxaan kaga hadalnay ocular anatomy, ocular physiology, ocular pharmacology, ocular pathology. waxaan kaloo kasoo hadalnay ocular waxaan kaloo kasoo hadalnay nutrition aan kasoo hadalnay sidoo kale waxaan kaloo kasoo hadalnay maadada strabismuska oo weershaha indhaha kasoo hadalnay intaasoo la jara u kala qeydan. waxaan kaloo kasoo hadalnay refractive error clinicalka. maanta hadduu ilaahay raado waxaan bilaabaynaa maada aad iyo aad u weyn qaybta indhahana markii la joogo aad iyo aad muhiim u tahay maadaama aan baranay structure-ka shaqada xubinta oo loo qabto sidoo kale haddii oo la daaweynayo xubnahaasi daawooyinka lagu isticmaalayo pathological-ka wax ku dhici karo oo mataqaanaa pathogenesis-kiisa ku samaysmi karo dhammaan haddaan kasoo hadalnay maanta waxaa muhiim ah cudurka guud xubnahaasi cudurrada ku wada dhaca inaan ka hadalno hadduu ilaahay raado maanta hadduu ilaahay raado waxaan ka hadlaynaa maadada ocular disease ayaan ka hadlaynaa. ocular disease waa maadada ugu weyn fieldiga indhaha markii laga hadlayo waa maadada ugu weyn waa almost buwaag gaarayo 1000 ka badan buwaaga laga qoraa oo mataqaanaa buwaag aad u tiro badan laga qoraa. maanta hadduu ilaahay raado waxaan ka bilaabaynaa lectures ayaan ka bilaabaynaa eyelid disease ayaan ka bilaabaynaa eyelidka dhammaan cudurrada ku dhaca ayaan ka hadlaynaa sida waxaan ka hadlaynaa mataqaanaa infectionska ku dhaco mataqaanaa inflammationska ku sameysma and then waxaa kaloo uga hadlaynaa mataqaanaa burooyinka ku sameysma oo malignant ayaan ka hadlaynaa hadduu ilaahay raado canceriska ku sameysma ayaan ka hadlaynaa hadduu ilaahay raado dhammaan mid kastana waxaan ka hadlaynaa hadduu ilaahay raado sida loo manage garayn lahaa dhammaan cudurradaas aan sheegnay iyo problemadaas sida loo manage garayn lahaa ayaan ka hadlaynaa hadduu ilaahay raado haddaan ka bilaabno eyelidka diseaseska ku dhaca waxaa ugu horeeya waxa la dhahay clesium oo most common clesium waa chronic inflammation disease chronic inflammation of mammalian gland horta clesium waa nabar nabar af Soomaali ahaan clesium maxaa la dhahaa nabarkaasi af Soomaali waxaa kaloo dhihi karaan Soomaali inta badan taqaanayo waa abuututu afka qalaad abuututu waxaa lagu dhahaa clesium waa chronic waa wax progressive wax soconayo inflammation soconayo waqti badan tusaale ahaan maanta uu dhacay maanta uu baabaa ma aha mataqaana kan waa mid oo hadda ku sameysmaayo waqti badan iskaga yaala waa chronic inflammation oo waxaa ku dhacay mammalian gland qanjir la dhaho mammalian gland wuxuu ku yaalaa qanjirkaani baalasha indhaha ayuu ku yaalaa baalasha daboolka indhaha ayuu ku yaalaa especially wuxuu ku yaalaa hareeraha oo mataqaana labada hare isha markiisas baalasha markiisas wareegsan yihiin hareerahan ayuu ku yaalaa mammalian gland hareerahaas ayuu ku yaalaa so marka asaa wuxuu noqonaa inflammation nabarka qanjirkaas ay wuxuu noqonaa mid inflammation uu noqdo taas waa marka hadduu inflammation noqdo waxaa dhacayo wax loo yaqaano clesium abuututu ayaa dhacaya maxaa cause gareeya in nabarkaas oo inflammation uu noqdo waxaa cause gareeya word obstruction inuu xirmo tusaale aan wax kastoo xiri kara haddii wax la barayo haddii mataqaanaa trauma wax ku dhicin anything oo mataqaanaa obstruction ku sababa qanjirkaasi ayaa sababa midda ugu horeeya midda labaad waa infectionska ku dhaco hadduu ahaan lahaa bacteria hadduu ahaa viral hadduu ahaan lahaa mataqaana viralkaas dhammaan infectionska ku dhacana wuu sababaa oo ugu caansantaa bacteriyada ugu dambeyntii calaamad nooca ayuu soo muuqana maadaama aan dhahnay waa qanjir inflammation noqday waxaasna sababa aan sheegnay maxaa calaamad oo soo muuqanayo oo anaga noo soo muuqanayo fastor horta waxaa soo muuqanaya more appearly horta waxaa leeyahay upper eyelid ayuu kasoo muuqanaa nabarkaani nabraha kale ka hadli doona hadduu ilaahay wuxuu kaga gedisan yahay wuxuu kasoo muuqanaa nabarkaani qaybta hore baalka isha ayuu kasoo muuqanaa laba waa painless waa xanuun dhan ma lahan almost xanuun dhan ma lahan maxaa complication uu sababi karaa haddii qofkan laga daaweynin oo nabarka meesha iskaga yaalo muxuu sababi karaa oo dhibaatay wuxuu sababi karaa waxa la dhahaa mechanical ptosis waa abnormal dropping of eye loo yaqaana waa baalka isha oo soo dhaco mataqaana daboolka isha dhan oo daboolaya inuu iska soo dhaco alxamdulillahi rabbil caalamiin dhamaanteena hadda
khanjiro iyo muscles ayaa maamulo kaas oo mataqaana haynay in baalka isha kor aan ku hayno laakiin hadduu soo dhacayo ka waran oo dropping uu sameynayo complication ka dhici karo nabar markuu weynaado wuxuu sababa baalka isha inuu soo dhaco loo wuxuu kaloo sababi karaa blurry vision aragtida inay cabar noqoto taasoo dhacaysa process oo loo yaqaano astigmatism due to pressure cornea nabarka wuxuu pressure gareynaa cornea waxa ay tahay hadda alxamdulilah rabbil caalamiin dhammaanteen markii lectureska laga hadlayo qofka lecturada hore soo bartay oo soo akhristay waxa u fududaanaya cornea waxa ay tahay sclerada waxa la dhammaan anatomicalkay ka soo hadalnay anatomy bas ma ka soo hadalnay physiology shaqada ee noo qabanaysa cornea shaqada ee noo qabato dhammaan waa ka soo hadalnay marka pressure wuxuu saaraa cornea yaa khatar ugu jiro inuu nabarkaas ka soo baxo waxaa khatar ugu jiro dadka blepharitis-ka inflammation of eyelashes-ka timaha isha dadka inflammatedka ayaa khatar ugu jiro sidoo kale waxaa kaloo halis ugu jiro dadka sokorta qabo dhammaan waa ka hadli doonaa haduu ilaaraado dadka sokorowga qabo xaalado badan ayay noo imaan karaan oo riski khatar ugu yihiin cudurrada indhaha ku dhaca sidoo kale waxaa kaloo muhiim ay tahay dadka isticmaala make-upka dumarkan inta badan waa lagu arkaa sababtoo ah waxay marinayaan qanjirka hoostiisa waxay marinayaan daawo ama mataqaanaa indhakuul ha ahaato ama wax kale ahaato markaas waxay ku samaysmayaan inay xiraan qanjirka afkiisa haddee daboolma qanjirka afkiisa wuu xirmayaa kadib qanjirka almost wuxuu soo deeyaa saliid ayuu noo soo deeyaa mamoyan gland waa qanjiriska qaabilsan qaybta ilinta haddana wuxuu qaabilsan yahay qaybta dufinta inuu soo deeyo oo isha smooth inay noqoto marka wuxuu sameynayaa afkiisa ayuu xirmaya make-upka afkiisa ayuu waxaas marinaya laga xiraya haddana wuxuu sababayaa in oo mataqaanaa inflammation uu saas ku noqdo sidee loo daaweeyaa hot fermentation waa loo daaweeyaa wax kuleel in qofka uu saaro sidoo kale combined drugs inuu qofka isticmaalo dhammaan talooyinkan iyo daawooyinkan qofka dhakhtarka markuu u tagay ayaa loo sheegay laakiin hadduu oo mataqaanaa guriga wax ku sameynayo keliya waxaa la ogolaya inuu ku sameeyo hot fermentationkan inuu ku sameeyo sidoo kale surgicalka hadduu nabarka weynaado oo daawo wax u tari weyse waxaa qofka lagu daaweynayaa qaliin nabarka labaad ayaan ka hadlaynaa waxaa loo yaqaanaa hordeolum ama style ayaa loo yaqaanaa styleka waa asigana sidoo kale nabar abututuwa kii hore nabarkaa kale muxuu af soomaali ahaan seebay ka yihiine muxuu calaamad ahaan iyo kaga gedisan yahay kii hore horta laba noocaa loo kala qaada midka koowaad aan ka hadlayna hadduu ilaaraado waxaa la lahaa external hordeolum nabarkaani wuxuu kasoo baxaa banaanka extra means banaan waa extra outside waa soo marka external waa painful waa kii hore haddaa xasuusataan waa painless ayuu ahay kan waa painful waa xanuun aad iyo aad u tiro badan ayuu leeyahay wuxuuna ku sameysmaa babid your eyelid edges hareeraha isha ayuu ku sameysmaya baalasha isha hareeraheed ayuu ku sameysmaya waxaa sababa one type bacteria ayaa sababta oo loo yaqaano staphylococcal bacteria ayaa sababta staphylococcal aureus bacteria ayaa sababta calaamadihiisa waa painful waa xanuun aad u tiro badan ayuu leeyahay sidoo kale wuxuu kaloo leeyahay tiredness qofka markuu taabto dhabarka inuu danqado sidoo kale eyelid marginka hareeraha isha bikam inuu noqdo redness inay gaduutaan bararaan mataqaana bas uu yeesho calaamadaas dhan ayaa sameysay maxaa complication nooga imaan kara qofka hadduusan daaweyn nabarahaas asigana waxaa ku sameysmi kara versatile cellulitis waxaa la dhahaa normalka galoobka isha wixii ka horeeya tusaale ahaan isha hadday sidaan u samaysan tahay galoobka ishan uu kan uu yahay baalka isha iyo baalka ishan ilaa inta uu ku ekaa labada baal inta ay ku egyihiin bartaas kasoo bilaw waxaa la dhahaa versatile cellulitis loo yaqaana hadduu intaas inflammation u noqdo intaasaa waxay galaysaa bas ayay galaysaa inflammated ayay noqonaysaa sidoo kale waxaa kaloo dhacay orbital cellulitis orbital means kan ayaa inflammated noqonaya marka cellulitis inflammation noqonaya sidoo kale waxaa kaloo dhacay gavernous sinus thrombosis waa sinus inflammation inuu dhaco qaybtan nas mataqaana triangular spacekan oo sanka iyo isha inta udhexeyso in inflammated ay noqoto yaa khatar ugu jiro haddii aynu waa soo sheegnay dadka qaba eyelashes inflammation dadka qaba khatarna waxay ugu jiraan nabrahaas inay kasoo baxaan sidoo kale skin condition dadka qaba dadka nabraha dadka xaaladaha gaarka ee maqaarka qaba tusaalahaan dadka dandruffska nabro oo qalfoof dadka wata oo dandruffska leh
iyo acne-da kuwaas ayaa waxay sababi karaan inuu nabrahan sidoo kale ku sababa sidoo kale dadka dry skin qabo dadka maqaarkooda uu aad u jilcan yahay sidoo kale dadka sokorta qabo dhammaan waxay khatar ugu jiraan in ay develop gareeyaan nabarkaani oo external hodgkin sidee loo daaweeyaa sida haday camal warm compression ayaa loo sameynaya qofka oo nabarka wax qadiir ayaa la saaraya sidoo kale qalajiya qofka loo isticmaalayo antibiotic ah sidoo kale evaluation baa haduu case u dheeraado waxaa loo baahnaanaya in oo la sameeyo nabarkaas in la dilaacayo midda labaad ayaan ka hadlaynaa internal hodgkin waa acute separative mammalian gland acute infected waxaan rabnaa acute infected meesha hadda separative uu ka yahay waxaan kaga soo tagay inuu noqdo acute waa infected inuu noqdo oo infection of mammalian gland waxaa infection inuu noqdo si degdeg u dhacayo mataqaana waana nabarkaani gudaha isha ayuu kasoo gudaha baalka isha markuu sidaan uu yahay nabarka inta ayuu ku sameysmaa kuwii hore nabarka inta ayuu ku sameysmaa gudaha isha ayuu ku sameysmaa waxaa sabab Staphylococcus aureus bacterial ayaa lahaaya sababto waa pain waa xanuun ayuu leeyahay tiredness ayuu leeyahay redness ayuu leeyahay barar ayuu leeyahay markii la gadiyana waxaa soo muuqanaya baalka isha wasakh oo jaale ah ayaa soo muuqanaysa sidee loo treatment gareeyaa antibiotic qofka la isticmaala oo systemical jirka guud sidoo kale mid local ayaa la isticmaalaya fermentation la isticmaalaya evaluation of bus ayaa la sameeyaa wasakhda iyo waxaas waa laga nadiifinaya hadda waxaan ka hadlaynaa blevritis dhammaan caseska ka soo hadalno dadka qabo blevritis waxa dheer risk ay ugu jiraan waa maxay blevritis means blevra waa eyelashes waa ritis waa inflammation waa eyelasheska in ay noqdaan baalasha indhaha inay noqdaan inflammation laba loo kala qaada anterior blevritis iyo posterior blevritis anterior blevritis waxaa loo kala qaadaa laba nooc ayaa loo yaqaana ulcerative iyo squamous hadda waxaan ka hadlaynaa hadduu ilaa yiraahdo ulcerative blevritis ayaa loo yaqaana waana infection waa association wuxuu ku dhaco glandiska loo yaqaano zinc and mold waxaa jiro almost 4-5 gland ka badan ayaa jiro qanjiro oo ku hareereysan baalasha indhaha kuwaasoo ka qayb qaata in ilin la soo deeyo ilintaasoo leh mid oo mataqaana nafaqo ka soo mid oo saliid leh mid biyo ka samaysan intaas ilinta kaliya biyo bas ma ahane intaasoo wax ayuu ilaahay ka sameeyay qanjiro marka waxaa jira qanjiro gaar oo mid walbaba shaqo gooni loo qabto marka qanjirkaas oo loo yaqaan zinc and mold ayaa infection noqonaya waxaa sabab laba bacteria sababto bacteria loo yaqaano Staphylococcus aureus iyo Staphylococcus epidermis labadaas bacteria lahaa ayaa sabab calaamad nooca ayuu yeelanaa qofka eyelasheska inflammation ka noqdo qaybtiisa hore anterior waxaa inflammation noqona waa chronic irritation waxa la ku dhacayo oo jimcin ayuu sameynaya eyelid margin waxay noqonayaan redness mid gaduudan soo kale endometriosis waxa noqdo inflammation inuu noqdo one mataqaana eyelasheskaas meesha ku yaal hadii laga soo fijiraa lahayn wuxuu sababa red bleeding ayuu sababa inay dhiigaan ayuu sababa sidee loo daaweeyaa daawada waa eyelid margin hareeraha baalka isha iyo timaha isha in oo nadaafadiis lagu dadaalo sidoo kale qalajiy oo boomaataa qofka in loo qoro oo dhakhtarka u qoro and then waa lubricant drugs in isticmaalo mid labaad ka hadlayno waxa loo yaqaan squamous blevritis waa non infected kuwani haday infection ayaan dhayna oo bacteria waxyaabo ayaa sababto kan waa non infected waa disorder ku dhaco glandiska aan ka soo sheekeysnay oo loo yaqaan glandiska mold and zinc kuwaasoo association la xiriiro mataqaana muscle la xiriiro soo marka calaamadaha uu leeyahay calaamadaha uu dareemayo qofka waxaa ka mid ah symptomskiisa waa ulcerative waa mataqaana some like ulcerative waa leeyahay waa sida ulcerative-ka calaamadaha oo kasoo sheegnay anterior blevritis-ka oo ulcerative oo infection-ka ayuu dareemaa laakiin waxay kaliya ku kala duwan yihiin markii oo laga soo saaro maxaa la waqtigaas hadii waa laga soo saaraa Allah ma sababo dhiig kuwa haday waxa soo sheegnay hada ku laabano wuxuu sawaay one crustis remove bleeding ayuu sawaynaa soo markan haday kan hada ma sameeyna dawladda maxaa lagu daaweeyaa waa eyelid margin hygiene in laga dadaalo compound drugs oo antibiotic iyo iskugu jira steroid ala seenaya dawladda mid saddexaad mid labaad haduu ilaaraado aan ka hadli doono waa posterior blevritis ma bobialis waa la dhahaa mataqaana magacaas kale buugta qaar ayee
ku magacaabaan waxaa sababa waa disfaction inuu ku dhaco waa causes waxaa sababa mammalian gland qanjirka loo yaqaan mammalian gland inuu ku dhaco disfaction means wuxuu noqon karaa characteristics disfaction erikaas wuxuu noqon karaa hyper secretion tusaale ahaan qanjirka inuu soo daayo saliid aad u tiro badan oo aan stable tear inuu dhacdo tearka in la stable grade waayo ayaa loo yaqaana posterior blight so marka maxaa calaamad oo kasoo muuqanaya body sensation ayuu dareemaa qofka secretion eyelidka marginka acanthiska ayuu dareemayaa oo mataqaanaa oil secretion ayuu dareemaa one gland massage markii la sameeyo markii la massage gareeyo iyadoo glandiska ilid soo deeyaan dufid saliid aad ku waxaa loo treat gareeyaa maxaa lagu daaweeyaa eyelid marginka eyelid hygiene ayaa lagu daaweeyaa systemic antibiotic waa la siiyaa qofka lubricant drugs oo u baahnaanaya trichiasis waa eyelash inward globe of the eye waa baalash indhaha inay ku laabtaan gudaha isha inay ku laabtaan soo marka waxaa sababa blabbritis waxaa soo sheegnay waa inflammation eyelasheska hadday noqdaan waxay sababaa inay gudaha u laabtaan sidoo kale waxaa kaloo sababi karo injury inuu ku dhaco dhaawac inuu soo gaaro hareeraha isha eyelid marginka inuu hareeraha isha dhaawac uu qofka soo gaaro uu sababi karaa sidoo kale waxaa kaloo sababi kara trachoma cudurkaani marar badan waa kasoo hadalnay trachomada waa waxyaaba ugu badan ee sababa mataqaanaa especially trachoma trachiasiska ayaa mataqaanaa cause gareeya chemical barriska chemicaliska wuu sababi karaa hadduu yidhaahdo calaamada waxay soo ayuu dareemaya variant body sensation ayuu dareemaya qofka inay isha wax kaga jirto ayuu dareemaya sidoo kale wuxuu kaloo dareemaya lacrimation waxaa la inay isha ilmeyso ilin yeelata ayuu dareemaya sidoo kale iftiinkana inuu dhibo ayuu dareemaya waa calaamadaha ugu badan ee ku sameynaya sidoo kale corneal epithelium defect inuu dhaco qaybta hore corneada epitheliumkeeda inuu defect ku dhaco inuu baabao inuu dhaco soo gaaro conjunctivitis inflammation of conjunctiva inay dhacdana sidoo kale sidee loo daaweeyaa trachiasiska waa ablation waxa la sameeyaa ablation dhammaan kiisaskani waxaa daaweeyay dhakhtar oo hospital ayuu u baahnaanaya oo xaafad inta badan lagu daaweeyo soo marka wuxuu u baahnaanaya ablation waxa la in baalashaas indhaha laga toosiyo oo la tifo and then mataqaana removal as mataqaana lagu sameeyo electrolysis waxa la loo sameeyaa as electric use also isticmaala ugu dambeyntii qaliin ayaa lagu daaweeyaa xaalad labaad ay ka hadli doono waxaa loo yaqaanaa intropionka waa condition waaye kaasoo eyelid marginka waa the globe of the eye waxaa waaye baalka isha eyelid marginka oo ah leedaha isha baalka isha inuu ku laabto isha gudaha uu ku laabto gudaha oo u galo maxaa cause gareeya senile ayaa cause gareysa oo age-ka ah qof markuu old age uu noqdo baalka isha inuu soo laabto gudaha isha ku laabto waa iska normal waa xaalad caadi senile-ka sidoo kale mechanical congenital loo noqdo sidoo kale inuu mechanical ahaan trauma ahaan ina soo gaarto qofka inuu trauma soo gaarto congenital uu noqon karaayo qofka inuu oo ku dhasho baalka isha gudaha ugu laabo way noqon kartaa soo marka maxaa calaamad ah oo noo soo muuqanaya first waxaa soo muuqanaya variant body sensation inuu dareemo maadaama isha wax ku laabta aan leenahay waxaas ku laabanaya macaltimiyi macabaalka isha wuxuu ku sababa inuu qofka isha wax inay kaga jirto uu dareemo sidoo kale lacrimation ilmeeyar ayuu sameynaya banted epithelium defect inuu ku dhaco qaybta hore ee corneada inay dhibaadhib inuu ku sameysto qaybta hore sidee loo treat gareeyaa mechanicalka asiga underlying causes ayaa lagu daaweynaya dhammaan waxyaabaha cause gareeya ayaa sababayna hadduu ilaahay sidoo kale waxaa kaloo ka hadlaynaa ectropion ayaa ka hadlayna ectropion waa condition kaasoo eyelid marginka avert away from globe waa banaanka isha ayay banaanka ugu baxaysaa baalka isha banaanka isha ayuu u bedelmayaa soo marka waxaa cause gareeya senile the age ayaa sababto critical inuu noqdo sida tusaale ahaan chemical injury inay dhacdo tusaale chemical ahaan inuu qofka oo injury usoo gaaro sidoo kale trauma inuu noqdo jug inay kasoo gaarto baalka isha sidoo kale medication kaasoo sababa nerviska maqaarka la mariyo inay dhacdo
paralysis actor ayaa dhaca sida tusaale ahaan basalka loo yaqaan orbicularis ocular basal inuu paralysis uu noqdo waa basalka awoodo inuu baalka isha laabo oo daboolo ayaa barbale ka dhaca sidoo kale facial nerve palsy inuu dhaco facial nerve neerfaha wajiga inuu palsy uu noqdo congenital ayuu noqon karaa waa lagu dhalan karaa ugu dambeyntii wuxuu noqon karaa mechanical trauma wax qof inuu soo gaaro xaaladaas uu noqon karaa calaamado ayuu dareemayaa calaamaduhu dareemayo waa epiphora inay isha ilmeyso sidoo kale expose keratitis ayaa ku dhaca dhuutadu waxaa dhacayo unstable tear inuu ku dhaco inuu cornea inay inflamed ay noqoto sidee loo treat gareeyaa surgical procedures ayaa la maraa kaasoo medial conjunctival sidoo kale skin graft loo sameeyaa kaasoo loo sameeyaa scar tissue ama repair defect loo sameeyaa lubricant drugs ointment and drops ayaa la isticmaalaa waxaa kaloo ka hadlaynaa hadduu ilaa iraado tosis waxaa la tosis waa kasoo sheekaysanay waxaa dhahna waa dropping inuu dhaco eyelid baalka isha inuu soo dhaco waxaa koosgareeya in baalka isha uu soo dhaco waxyaabaha koosgareyn karo in baalka isha uu soo dhaco fastor waxaa waaye congenital waa qofka inuu ku dhasho hadduu qofka dadka qaar ay ku dhashaan baalka isha soo dhacay almost waa waxyaabaha ugu badan lagu arko waa baal developmental basal and nervous basalka inuu baal developmental ku dhaco inay si fiican developmental u sameey waaye sidoo kale biogenic process inuu dhaco biogen oo si tusaale ahaan bacteria graft iyo ocular bioblast inuu dhaco waxa ugu badan ee sababa tosiskana waxaa kaloo ka mid ah senile qofka inuu age da uu noqdo tusaale ahaan dad da 60 iyo 70 ka weyn tosiska wasta badan lagu arkaa sidoo kale waxaa kaloo sababi karta trauma jug inay soo gaarto jugkaas waxay kaloo soo gaari kartaa basalka inuu jug soo gaaro nerve inuu jug soo gaaro waxyaas dhan way sababi kartaa sidoo kale mechanicalka waxaa kasoo sheekeynay casharkeena koowaad clisiumka ayaa kasoo sheekeynay clisiumka haddii aan la daaweyn waxaa dhacayso tosis dhabarkaas haddii meesha kor iskaga yaalo haddii qofka laga daaweynin wuxuu sababaa in baalka isha uu soo dhaco soo marka sidaas la mid ah baalka isha qofka haddaan laga daaweyn wuxuu sababaa in oo soo dhaco mechanical harness symptoms-ka calaamaduhu qofka dareemayo oo calaamaduhu dareemayo cosmetical effect ayuu dareemaa wax ugu horeeya oo maadaama baalka isha uu soo dhacsan yahay oo mataqaana foolxumo ah qofka waxaa baston u ekaana qof hurdaay camal marka waxaa leeyahay warnay utay hurdaysayo ka kacaya leeyahay soo marka cosmetical ahaan ayuu effect gareynaa wax ugu horeeya laba wuxuu kaloo sameyn karaa amblyopia ama abnormal being head posture ayuu sameyn karaa soo marka sidoo amblyopia ku sababa baalka isha uu soo dhacay amblyopia sida normalka ognahay waa lazy isha inay lazy ay noqoto caajisto aragtida ay qaadi weyso waqti garaadii ay aqbali weyso xaaladeeda ay adkaato soo ku noqon kartaa baalka isha uu soo dhacay almost waxay noqon kartaa waxyaabaha ugu badan horta amblyopia develop gareeya waa medial obesity inuu jiro tusaale ahaan corneada in ay mataqaana obesification ku dhaco inay caddahay haddii corneada cadda iftiin soo galay ma jiro oo qaybta ratiinaha gaaraya tusaale ahaan lensiga hadduu oo cataract hadduu qofka uu leeyahay oo iftiinka isha hadduu soo galo corneada soo dhaafo lensiska oo xiraayo iftiin gudaha aan gaarayn ugu dambeyn go-aan maskaxda ay gaareen ishaas in la garoos karay sidaas la mid ahna haddii baalka isha uu soo dhaco oo meesha ugu horeysa ah oo iftiin isha sidii kale ay u fiican tahay laakiin baalka isha ee mataqaana fiican tahay almost wuxuu develop gareynayaa amblyopia ayuu develop gareeyaa sidee loo daaweeyaa waxaa loo daaweeyaa surgical procedures ayaa la maraa oo qaliino oo tosiskaas loogu talagalay ayaa ka hadlayna hadduu ilaahay yiraahdo waxaan bilaabeynaa beginning upper lids ayaan ka hadlaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaa kaloo ka hadlaynaa hadduu ilaahay yiraahdo epithelium tumorska ku dhaco erag ahaan meeshaani waxaa ka qaldan maalin waxaan ka rabaa beginning tumor of lid ayaan ka rabaa tumorska baalasha indhaha ka sameysmo ayaan ka hadlayna burooyinka baalasha indhaha ka sameysmo 4 nooc loo kala qaadaa
waxaa loo kala qaada epithelium tumors, waxaa kaloo loo kala qaada melanoma tumors ayaa loo kala qaada. sidoo kale adnexal tumor, system of tumor loo kala qaada. sidoo kale waxaa kaloo loo kala qaada vascular tumor. midda ugu horeyso epithelium tumorka oo baalka isha qaybtiisa hore ku samaysan waxaa ugu horeeya squamous papilloma waxaa la lahaay. squamous papilloma waxa ay tahay waa ka hadli doonaa hadduu ilaahdo. sidoo kale waxaa kaloo ka hadli doonaa hadduu ilaahdo keratoconthoma mid la dhahayo iyadana waa ka hadli doonaa, waa epithelium tumorska ku samaysma. sidoo kale waxaa kaloo jiro melanoma tumorska. melanomaha waxa ugu caasan laba nooc, mid lagu dhasho oo congenital ah taasoo ah kissing nerve, waxaa loo yaqaanaa kissing nerve ama waxaa kaloo dhihi karaa kaasoo kissing nervegaas kaasoo sameynayo leukocytes. acquiredkana waxaa waaye conjunction nevus waxaa la conjunctional nevus waxaa la dhahayo ayaa sabab melanoma. xaaladda saddexaad oo adnexialka oo baalka isha qaybta ka horeysay waxyaabahaas dhan sababay waa epithelium occlusion ama malia wax dhacay. vascular tumor ayaa lahaay tumoriska oo vascularkan inuu develop gareeyo. waxaa kaloo ka hadlaynaa malignant canceriska ku dhaco ayaa ka hadlaynaa. waxaan ka hadlaynaa squamous cell carcinoma. squamous cell carcinoma keligiisa markii laga hadlayo calaamadihiisa, pathogenesiskiisa, dhammaan mataqaana baaritaanadiisa, investigationskiisa, wax calaamadihiisa baaritaanada cause underlying causeskiisa waxyaabahaas markii laga hadla almost waxaa laga hadli karaa content page ayaa keligiisa looga hadli karaa. waa canceriska ku dhaco baalasha dhan, waana noocyada ugu badan ee la arko waa basal cell carcinoma. waxaa kaloo jiro squamous cell carcinoma mid la dhahay. squamous cell carcinoma asagana waa the second one oo ugu caansan oo tumoriska oo eyelidka ku dhaco, malignantiga oo ku dhaco tumoriska oo baalka isha ku samaysma ayuu ugu caansan yahay. sidoo kale waxaa kaloo jiro malignant melanoma mid la dhahay, waa nooc ka mid a type of canceriska ku dhaco baalka isha. ugu dambeyntii waxaa kaloo jiro market cell carcinoma mid la dhahay. market cell carcinoma asigana waa most common oo ku samaysma malignantiga oo eyelidka ku dhaco. sidee loo treatment gareeyaa loo daaweeyaa? first wuxuu u baahnaa qofka biopsy waxa la dhahay. biopsy waxaa waaye in oo tissuegaas nudahaasi in laga qaado cad ka mid in laga qaado, and then laboratory investigation loo sameeyo oo lab loo sameeyo, and then la ogaado waxaan ma cancer miya mise tumor caadi buro iska soo baxdo in biopsigaas oo qofka u baahnaado. sidoo kale surgical procedureska oo qaliinada haddii oo xaaladaas ay soo muuqato waxaa muhiim ah 100% ah in qaliin la sameeyo. qaliinkaasoo qofka inta badan wuxuu ka caawinayaa in oo inta mastali barnaamijkaas oo qaliinkaas loogu sameeyo. waa idinkaga mahad celinayaa hadduu ilaahay guud ahaantii guud markii laga hadlaayo eyelidka saddex waxaan kaga soo hadalnay khulaaso guud ah. waxaan ka soo hadalnay disorderska ku dhaco waxaan kaga soo hadalnay marka intaasoo nooc ayaan kasoo hadalnay. waxaan kasoo hadalnay clisium kasoo hadalnay, waxaa kaloo kasoo hadalnay style kasoo hadalnay, waxaa kaloo kasoo hadalnay styleka, waxaa kaloo kasoo internal external hordeolam styleka kaga soo hadalnay, waxaa kaloo kasoo hadalnay blavritis ayaan kasoo hadalnay anaga u kala qaadan anterior iyo posterior. blavritis ayaan kasoo hadalnay anterior laba nooc aan kaga soo hadalnay squamous iyo ulcerative-ka. posterior waxaan kaloo kasoo hadalnay mebialis. waxaa kaloo kasoo hadalnay marka cudurrada caadiga oo ku dhaca, tusaale ahaan waxaan kasoo hadalnay trachiasiska, eyelasheska inay problem uu ku dhaco. sidoo kale waxaa kaloo kasoo hadalnay intropion ayaan kasoo hadalnay oo eyelidka inuu gudaha isha u galo. ectropion ayaan kasoo hadalnay eyelidka inuu banaanka u baxo. almost waxaa kaloo kasoo hadalnay ptosis waxaa la dhahay iyo baalka isha inuu iska soo dhaco. waxyaabaha sababaya aan ugu shakinayno qofkaan waxaan baalka isha qof iska soo dhacsan haddaan aragno muxuu qofkaani develop gareyn karaa. almost xaaladahaas markii laga soo tago oo baalka isha soo dhaco calaamadahaas iyo waxyaabaha soo sheegnay markii laga soo tago waxaa kaloo kasoo hadalnay ugu dambeyntii waxaa kaloo kasoo hadalnay tumoriska burooyinka kasoo baxa laba loo kala qaada. marka laba nooc ayaa jirto aan soo sheegnay. midna waa malignant waa cancer one,
malignant waa midna waa beginning waa beginningka waa tumor caadi waa buro iska normal oo mataqaanaa burooyinka caadi jirka ka soo baxa camal midaana waa cancerous waa midaan waa cancer caadi ka soo dhaca waa malignant tumor iyo beginning tumor marka malignant tumor iyo beginning tumor labadaba waxaa loo baahnaanaa si loo baaro biopsy loo baahnaanaa biopsy means waxaa waaye in oo investigation lagu sameeyo war waxaan waxa sababay cancer miya dhabarka iska soo baxay cancer miya ama waa malignant caadi oo maxaa la dhahay iska normal iska sameysmay almost haddii intaas mataqaana baaritaankaas la sameeyo ugu dambeyntii waxaa lagu daaweynaa surgicalka waa idinkaga mahadcelinayaa daawashada videogan lecturekan wixii su-aale dhanka commentiga hore. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.